Today I am announcing $185 million in humanitarian assistance here to provide life-saving food, water, and health care to Somalis in need. hay-adda USAID ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa xafiiskeeda rasmiga ah ka furatay magaalada Muqdisho waxaana munaasabad lagu furayay xafiiskaas ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre qaar ka mid ah golaha wasiirada safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa soo dhaweeyay in hay-adda USAID ay 30 sano kadib ka furato xafiiskeeda magaalada Muqdisho ku soo dhawow USAID Administrator Mark Green magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aqbashay casuumadii aan kugu casuumay inaad na soo booqato markii aan kuugu imid Washington waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in hay'adda gargaarka Mareykanka ama USAID inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay inaad casuumadina soo aqbashay halkan aad xafiis ka furateen si aad dadka Soomaaliyeed si toos ah ugu gargaartaan waa idinkaga mahad celinayaa sidii markaan Washington imidna aan ku arkay haddana aan ku arko xiriirka dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsaneed taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelanay 2 sano la soo dhaafay iyo dib u habeynta maamul dhaqaale amni siyaasadeed oo aan dalka ka wadno waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantiin dadka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahad celinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna runtii dadaal badan muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara waxaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa safaaradaha kale inay idinku daysadaan horumarka aad samayseen iyo joogitaanka halkan aad joogtaan iyo maalgashiga aad dalkan ku sameynaysaan ayaan iyagana ugu baaqayaa welcome to Mogadishu madaxa hay-adda USAID Mark Green ayaa sheegay in Soomaaliya ay hadda u muuqato mid la aamini karo waxa uuna isla maanta uu ku dhawaaqay in $185 milyan oo dollarka Mareykanka ah taas oo wax loogu qabanayo xaaladda bini'aadanimo And first, please, Mr. Prime Minister, thank you so much for hosting us, not just here, but your hospitality while we're here in Somalia. aad baad u mahadsan tahay mudan ra'iisul wasaare sida aad nagu martigelisay Soomaaliya maanta waa maalin muhiim u ah xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka waxaan si rasmi ah u furayaa xafiiska hay'adda USAID ee Muqdisho kani waa xafiiskii ugu horeeyay ee laga furo Soomaaliya ku dhawaad 30 sano kadib wada shaqayntan kaliya ma ahan xiriirka labadeena dawladood balse waa horumarka ay gaartay Soomaaliya waxa aynu xafiiskan u furnay shacabka Soomaaliyeed iyo hogaankooda oo na tusay wada shaqayn wanaagsan kuwaas oo nagu qanciyay firfircoonidooda isla markaana mustaqbalka la aamini karo maanta waxaan ku dhawaaqayaa $185 milyan oo dollar oo kaalmo bini'aadanimo ah taas oo loo isticmaalayo cuntada biyaha iyo adeegyada caafimaadka Today I am announcing $185 million in humanitarian assistance here to provide life-saving food, water, and health care to Somalis in need.